xildhibaanad Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada ee Mareykanka ayaa waxa ay la kulantay dhacdo argagax leh kadib markii uu weerar ku soo qaaday nin isku dayay in si la yaab leh uu nafta u dhaafiyo Ilhaan Cumar. Haddaba faahfaahinta xogtan ayaan idiin soo gudbinaynaa. Marka koowaad soo dhawow muuqaalkan like garee, sina share garee si dad badan xogteena ay u gaarto. Xildhibaanad Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka Koongareeska Mareykanka ayaa waxa ay la kulantay talaadadii dhacdo aad u argagax badan kadib markii nin caraysan uu masraxa uu ku soo orday, yacni xaggeeda uu u soo cararay xilli ay ka qaybgalaysay kulan dadweyne town hall oo ka dhacay magaalada Minneapolis. Isaga waxa uu markaasi adeegsanayay cirbad oo uu ku buufinayay walax markaasi dareere ah. Arrintaas waxay keentay in xildhibaanad Ilhaan Cumar ay si carara uga falceliso falkaasi oo ninkii xaggiisa ayay u carartay iyada oo feer u duubatay, laakiin taasi ma suurtagelin oo isla markiiba waxaa gacanta ku dhigay oo qabtay ciidamada markaasi ilaalada ee goobta joogay. Xildhibaanad Ilhaan Cumar ayaa la kulantay xaalad khatar ah sababtoo ah nin cirbad haysto oo isku dayaya in uu nafta dhaafiyo oo uu cirbad markaasi sumaysan uu ku buufiyo xildhibaanada. Ninkan waxa uu markaasi ka mid yahay kooxaha cunsuriyiinta ah kuwaas oo muddooyinkii u dambeeyeyba Soomaalida si aad ah u beegsanayay oo dagaal badan ku waday, iyagoo ka shidaal qaadanaya go'aanada isdaba joogga ah ee ka soo baxayay Donald Trump. Hadda marka xaaladdu waxay u muuqataa in ay talada faraha ka sii baxayso, heer kooxaha cunsuriyiinta ay isku dayayaan in ay waxyeeleeyaan dadka Soomaaliyeed ee muhiimka u ah bulshada ee ku nool gudaha waddanka Mareykanka. Weerarkan waxa uu dhacay xilli Ilhaan Cumar ay si adag u cambaareysay falalka hay'adda socdaalka iyo sidoo kale kastamada Mareykanka ICE ee gobolka Minnesota. Muuqaalo laga duubay ayaa lagu markaasi waxay muujinayeen ninka oo si xooggan markaasi ugu soo cararaya halka ay xildhibaanadu taagneyd, isaga oo ku buufinaya dareere ka hor inta uusan ninka goobta ku sugnaa uusan qabanin oo dhulka uusan dhigin. Ilhaan oo muujisay dhiiranaan ayaa dhowr tallaabo hore u qaaday iyadoo gacanta markaasi taagaysa, balse markii ninka la xakameeyey ayay dib u bilowday hadalkeedii kadib hakad kooban oo ku yimid. Booliiska Minneapolis waxay xaqiijiyeen in saraakiishii goobta ku sugnayd ay arkeen ninkan oo isticmaalaya saliingo si uu dareero aan la garanayn ugu buufiyo Ilhaan. Ciidamada ayaa isla markiiba ninkaas xiray iyagoo ku soo oogay dacwad weerar heerka saddexaad ah. Waxaana booliisku ay sheegeen in Ilhaan aysan wax dhaawaca soo gaarin. Kooxda baarista dambiyada ayaa goobta gaaray si ay u baaraan dareeraha markaasi la isticmaalay. Wuxuu ku buufiyey walax ay markaasi haweeney goobta ku sugnay tiri, iyadoo dadka kalena ay ka cawdeen urta xun ee dareerahaas. Waxaana markaasi lagu baahiyey, waxaan u baahannahay tirtire ayay tiri Ilhaan markii ninka la xakameeyey, iyadoo intaasi kadib si degan markaasi u tiri waan sii wadan doonaa hadalka. Weerarka ayaa yimid xilli Ilhaan ay weerar afka ah ku haysay xogayaha amniga gudaha iyo hay-adda ICE iyadoo ku baaqaysay inay markaasi is-casisho kadib markii dilkii labaad muwaadin Mareykan ah oo dhowaan uu ka dhacay Minneapolis intii uu socday howlgalka socdaalka ah ee uu riixayo madaxweyne Donald Trump. ICE lama hagaajin karo, dibna looma habeyn karo, waa in gebi ahaanba meesha aan ka saarnaa. Xogayaha Neom waa in ay is-casishaa ama ay wajahdaa xilka qaadis ayay tiri Ilhaan xilli ay dadka u sacbinayeen. Waxaana xilligaasi soo orday nin ku qaylinaya adiga ayaa mudan inaad is-casisho oo markaasi xilka laga qaado. Dhanka kale madaxweyne Donald Trump oo inta badan weeraro siyaasadeed ku qaaday Ilhaan horeyna ugu tilmaamay qashin ayaa isla talaadadii khudbad uu ka jeediyey Iowa ku sheegay in Ilhaan aysan jeclayn Mareykanka. Waa in ay markaasi muujiyaan inay jecel yihiin dalkeena, waa in ay sharaf u arkaan ayuu Trump oo goobta ka hadlayay kana hadlayay soo galootiga uu sheegay. Ma ahan sida Ilhaan Cumar oo kale ayuu hadalkiisa sii raaciyay. Haddaba dad nala soo gaartay dhamaadka muuqaalkan fadlan like garee, sina share garee si dad badan xogteena ay u gaarto.